kulan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hanti hadalhaynta maanta halkaad nagala socotaan waa hanti t v. qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah gobolada maraykanka qaarkood oo duufaano ay ku habsadeen. shiinaha ayaa gantaal ku riday koonfurta badda shiinaha isagoo digniino uga dhigaya maraykanka. shirkadaha walmart iyo microsoft ayaa iskaashi sameynaya si ay u iibsadaan tiktok. baarlamaanka gariiga ayaa ansixiyey heshiiska badda ee masar saacado kadib markii turkiga uu ku dhawaaqay howlgallada badda ee mediteraneanka. markana qodobadii oo fidsan. gobolada maraykanka qaarkood oo duufaano ay ku habsadeen. ugu yaraan 800,000 oo qof ayaa koronto la-aan ah gobolada texas iyo louisiana kadib markii duufaano ay ku habsadeen goboladaas. ugu yaraan 6 qof ayaa geeriyootay. dhanka kale arkansas ayaa ku jirta xaalad deg deg ah. shiinaha ayaa gantaal ku riday koonfurta badda shiinaha isagoo digniin uga dhigaya maraykanka. shiinaha ayaa 4 gantaal oo digniin u ah maraykanka riday. gantaaladan ayaa wax khasaaraha dhalinin kadib markii ay ku dhaceen koonfurta badda shiinaha. xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa xumaaday dhowaanahan iyadoo ay ku muransan yihiin arrimo ay ka mid yihiin taiwan, ganacsiga, koonfurta shiinaha iyo tiknolojiyadda. shirkadaha walmart iyo microsoft ayaa iskaashi sameynaya si ay u iibsadaan tiktok. walmart waxay iskaashi la sameyneysaa microsoft iyadoo isku dayeysa inay iibsato tiktok. ogeysiistan ayaa imaaneyso saacado kadib markii madaxa tiktok kevin mayer uu shaqadiisii iska casilay iyadoo tiktok ay wajahayso dhaleecayn uga timid madaxweyne donald trump oo ku aadan lahaanshaha shirkadda. sida ku xusan amarada fulinta ee trump, tiktok waxa uu khatar amni ku yahay dalka maraykanka sababtana ay tahay in ay aruuriyaan xog fara badan oo ku saabsan adeegsadayaasha. 100 milyan oo qof ayaa adeegsato tiktok gudaha dalka maraykanka. shirkadda waxay sahmisay iibinta ganacsigeeda maraykanka oo khubarada warshadaha ay ku sheegeen inuu qiimaha shirkadda u dhexeeyo 40 bilyan ilaa iyo 50 bilyan. dhinaca iyo turkiga iyo gariigana baarlamaanka gariiga ayaa ansixiyey heshiiska badda ee masar saacado kadib markii turkiga uu ku dhawaaqay howlgallada badda ee mediteraneanka. heshiiska athens iyo kahira waxaa loo arkaa inuu yahay mid jawaab u ah heshiiskii turkiga ee libiya ay kala siixdeen 2019 kaasoo u ogolaanaya turkiga inay marin u hesho eegaga ku yaala gobolka halkaas oo kaydadka shidaalka laga helay. faransiiska ayaa sheegay inay ku biireen layliyo military oo ay la galeen talyaaniga, gariiga iyo qubrus ee bariga mediteraneanka. gariiga ayaa u eg inay taageero ka helayso wadamada yurub halka heshiiska gariiga ee masar ay gaareen ay ku noqonayso turkiga caqabad weyn. barnaamijkeeniina waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe. amaan allah.